بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan idinku salaamayaa salaan la isku salaamo midda ugu qiimaha badan leh ee ugu martabada sarreysa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka bacdi waxaan halkan maanta u soo fadhiistay inaan tacsi tiiraaya leh naxdin leh aan u diro dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay wax ka soo gaadheen 21 December. 21 December dadkii ay wax ka soo gaadheen intii ku dhimatay inaan tacsi u mariyo, intii ku dhaawacantayna ilaahay inuu caafiyo aan ka hadlo. waxaan ku bilaabayaa bismillaahir rahmaanir rahiim. 21 December wixii dhacay waa 5 cisho ka hor. 5 cisho waxaan u hadli waayay si aan u ururiyo waxyeeladii dhacay wararka ka soo baxaya. waxaan akhriyay inta oo maqaal oo dhinacyo badan ka socda. wixii baan isku miisaamay anoo waxba kale ogeyn inaan meeshan imaado ayaan diiday. waxaa ka dhacay 2 arrimood oo falxun. mid wuxuu ahaa balbala, xaafad weynta balbala oo ummad reer Jabuuti ah oo ku xusaysa ama wanqal iyo mawlid qal ugu samaynaysa odagii ay ka tafiirmeen oo ummadaasi reer Jabuuti ah. aanu ma oranay reer qurac iyo reer galeyd. aniga ummadu waa imid aan ogahay oo ogsoonahay ummadan ilaahay abuuray inuu aadan iyo xawa ka sameeyay. waxaan ogsoonahay ummadda geeska Afrika fadhiday inay ehel quraati yihiin. waxaan ogsoonahay taariikhda ummadda meeshay ka soo jeedaan iyo meeshay ka yimaadeen. ma oranay reer qurac iyo reer galeyd. reer qurac iyo reer galeyd waxa idhaahda sidiisaba nin biyo ku caba. ana weligii koob shaaha kuma cabin, koob biyana kuma cabin. waxaan ka xumahay ummadaas shaqaaqadu ka dhacday. tacsina uga marinayaa dhammaan intii dhimatay eheladoodii qaraabadoodii. iyagana waxaan ilaahay uga barayaa inuu ilaahay qabriga u waasiciyo, inuu ilaahay uga dhigo beeraha jannada ka mida, inuu ilaahay shuhaadadii iyo ambiyadii la xidhiidhsiiyo subxaanahu wa tacaala. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. waxa kale oon u ducaynayaa oon duco u marinayaa dhammaan intii ku dhaawacantay, ama xagga askarta ka dhaawacmaan ama xagga bulshada rayidka ka dhaawacmaan. labaduba waa reer Jabuuti, labaduba waa ehel iyo qaraabo. waa dad mida ilaahay baa wada abuuray, ilaahay baa mid ka dhigay, anuu laba kama dhigi karo. waxaan leeyahay dhammaantiin ilaahay caafimaad sariican ha idin siiyo. midda labaad waxay ahayd weerar ka dhacay guriga ama meesha uu degan yahay qareen, avokaa ama lawyer sida u taqaanaba, jaamac ama re meydal. halkaas video laga soo duubay aan daawanay. waxaa ku dhaawacmay isaguna ilaahay ha caafiyo Axmed Yuusuf Axmed oo ah oday reer Jabuuti ah, 27 jir ah, isla markaana xaaladiisa caafimadeed aanay marnaba ficnayn. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay caafiyo. waxa kale oo ku dhaawacmay Xaamud Suldaan oo ah wasiirkii hore ee diinta iyo awqaafta. aniga gaar ahaan macallinkayga ah oo aan garanayo shakhsiyadiisa. ilaahay ha caafiyo ayaan isagana leh. waxa kale oo ku dhaawacmay Saciid ama Saddaan saa u taqaanaan oo ah MP ama dibitaate ama xildhibaan kii ugu da'yaraa ee Jabuuti soo mara taariikhda. ilaahay caafiyo isagana. dhammaantoodna ilaahay ha caawada caafiyo. waxay meesha ka dhacayna qof kasto aqli loo ka xun yahay, qof kasta oo maskax loo ka xun yahay, qof kasta oo fikiraya oo ka xun yahay, qof kasta oo berito la eegay oo ka xun yahay. waxaan sidoo kale ku dardaartamayaa, dul dhigayaa quwadeyda, hadalkayga ku adkaynaya, labada dhagood ii fura. waxaan idinku dardaarayaa fartaas halkanna way ka caddahay, halkanna way ka madoodahay. waana hal far. halkan way ka caddahay, halkanna way ka madoodahay. reer qurac iyo reer galeyd hadday wax tarayaan wadamo badan baa ku maqan. reer Jabuuti waxaan idin leeyahay
nabad nabad wada noolaasho nabad wada noolaasho gebigiina ehel qurahaata gebigiina walaala ah gebigiina dad midata waxaan wali hadda u ordaynaa oo raadinaynaa qarankii Soomaaliyeed ma karayno qaran labaad oo burbura waan dareemayaa nin Jabuuti ku dhashay baan ahay nin Jabuuti ku soo koray baan ahay nin Jabuuti ku guursaday baan ahay nin Jabuuti aabbo ku noqday baan ahay oo ciyaal ugu dhasheen waad dareemi kartaa waxaan dareemayo ninna ma aamusi karo doontiisii oo sii dumaysa qofka aamusana waxaan aaminsanahay inuu yahay qof aan damiir lahayn waa ka xumaay wixii ka dhacay waana idin kala dardaartamaya cudurka xunka ah ee wadana badan ku maqayeen ilaahay baan idin ku dhaarshay nabad baan idin ku yeedhayaa ilaahay baan idin ku dhaarshay nabad baan idin ku yeedhayaa waxaan idin ku yeedhayaa inaad walaal tihiin waxaan idin ku yeedhayaa inaad wax wada dhashitiin ugu dambayn waxaan dhageystay VOA nin muwaadina oo ka hadlaya oo ku tilmaamaya inay ahaayeen argagixiso dadkii meesha isugu yimid waxaan leeyahay inaad iro waad qalnantay anu argagixiso ma arkayne sawirkan eeg waxaan tacsi gaar ah u dirayaa Sumaya Cabdiraxmaan Jaamac waxay dhalatay 2009 caruurteedii la da'tay waa ilmo yariisa waxay rabtay inay ka qayb gasho xuskaas islaan annaguba uga qayb gali jirnay Sumaya Cabdiraxmaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala shafiic waalidina ka dhigo intii dhashayna ha samadi iimaan Allah ka siiyo waxaan idinku yeedhayaa nabad waxaan idinku yeedhayaa nabad hadallada qaar ayaa ummad kicin kara waxaan idinku yeedhayaa nabad waxaan idinku yeedhayaa nabad xagga dawladana nabad baan ugu yeedhayaa xagga bulshada rayidkana nabad baan ugu yeedhayaa xagga dawladana waxaan leeyahay war wixii dhacay yaan la buunbuunin wax eeba dhacay wax foolxun baa dhacay waa laga aamusaa waxaan idinku yeedhayaa nabad waxaan idinku yeedhayaa nabad ilaahay baan idinku dhaarshay waddanka yariiska ah ummadda ku hoos gaajoonaysa ilaahay baan idinku dhaarshay qax ha ugu bedelina waxaan idin leeyahay dhammaantiin ilaahay nin walba meesha uu joogo ha ku xafido nin waliba meesha uu joogo ilaahay ku xafido aad baan idin soo wada salaamayaa kashkii laabtaan idin ka soo salaamayaa I love you in all other. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.